السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي سو دوادا أصحابتي waxay noo socday casharadeenii imtixaanaha ahaa oo aynu kaga hadlaynay barashada xisaabta dugsiga sare chapterkiisii ahaa trigonometry waxa aynu ku sii jirnay ciwaankeenii ahaa proving trigonometry identities qaabka loo proof gareynayo waxaynu ka soo hadalnay laba video hore baynu ka soo hadalnay kana waxa uu noqon doonaa videogeena ugu dambeeyay provingka waxaynu ku arki doonaa example ka yara dhaadheer example-ladii hore aynu hore u soo aragnay markastana waa ku sheegay muhiimaddu wax weeyaan ardaygu haddii dhammaan rulalkii aynu soo dhignay oo toddoba aan ku sheegnay trick inay yihiin marka qaar loo isticmaali doono oo example-kan hadda ku isticmaali doono in ardaygu maskaxda uu ku hayo qaybtii rationaliska maskaxda uu ku hayo reciprocity maskaxda uu ku hayo haddaba arday waxaan la yiraahdaa waxaad proof gareysaa 1 minus sin x oo lagu dhuftay 1 plus cos x inay la macno tahay cos x oo lagu dhuftay cot x yani waa maxay qof kastoo inageeda kamid ah waxaan aaminsanahay in uu dhammaan xirarkii maskaxda uu ku hayo laakiin haddii ay tahay daawada markii ugu horeysa aan soo muuqato waxaad raadisaa oo aad gadaal ugu laabataa xirarka casharka ah proving trigonometry identities ka ahaa si aynu isla ogaano meesha aynu socono iyo waxa aynu isku bedbedelayno haddaba waxaan la weydiiyay maanta waxa la yiraahdo wax 1 minus sin x oo lagu dhuftay 1 plus cosec x baa la yiraahdaa haddaba waxa is weydiinayaa meesha tan wax la bedeli karo maxaa ku jira cosec baa la bedeli karaa sin waa original waa basic la bedeli karo marka waxa leeyahay waa 1 oo lagu daray sin x bracket keeda oo soo xir lagu dhuftay 1 oo lagu daray xagee bay ka timaaday 1 over sin bay ka timaaday kadib inta markaa sameeyso sidii aljabrada xalli oo ku dhufo 1 hadii 1 lagu dhufto waa 1 hadii lagu dhufto intaas waa isla inteedii 1 over sin x akan minus weeyaan 1 pardon akan minus weeyaan صوت علامتين وماينس وين هلا كنا ماينس وين هي كدنا ما حنسمينا يا دي سين كفر مركا سين هدي انت لو دفت واي مسا وماينس سين اكس ماينس بلاس كله فوا ماينس انت هدي لا اسكو دفت هدي 1 over sin x لو دفت sin labada sin baa isla baxaya minus 1 baa inta kugu soo hareys intaas minus 1 markay kugu soo baxdo 1 kaas iyo minus 1 kaasi cancel each other is cancel ayaan kadibna halka waxay ka soo hareysaa 1 oo loo qaybiyay sin x oo laga jaray sin x labada takan hooseeyaysu waa 1 waxaan u raadinaynaa LCM baan u raadinaynaa sin x ku noqonaya haddaba sin x haddaan sin x u qaybiyo sin u qaybi waa 1 markii 1 ku dhufatana waa 1 sin haddii aad u qaybiso 1 waa sin haddaa sin ku dhufatana waa maxay waa sin square x haddaba halka markaan marayo 1 minus sin square x waan garanayaa waxa ay la dhiganto cos square bay la dhigantaa xeerkeeni Pythagoras-ka anoo ka faa'iideysanayna oo loo qaybiyay sin x haddaba cos square maadaama ay laba cos ay tahay waxaan leeyahay aan kala qaado yani waxay ka timaatay cos x oo lagu dhuftay cos x oo loo qaybiyay sin haddaba u kala qaadi karaa mid kasta gaarkeeda waxa weeyaan haddii aan u siiyo waxa iga soo baxaya marka fiiri waxaan iri 1 minus cos square bay la macna tahay sin hadda labadaasi haddaan isu qaybiyo waxa iga soo baxaya meesheeda waxa weeyaan 1 minus sin x laga jaray sin x waa sin square 1 minus sin square intaas waxay la macna tahay cos square haddii sin loo qaybiyo labadaasi waxa iga soo baxaya cos haddii sin loo qaybiyo fiiri cos haddii sin loo qaybiyo halkaasi waxa iga soo baxaya cosine waa cot oo lagu dhuftay de cos ka soo haray maadaama laba cos ay tahay yani waa maxay awood uma leeyahay in uu qaybiyo horaan kaaga dhigo waxaan ku yiri x oo lagu daray labo oo loo qaybiyay b macnaheedu ma x oo macnaheedu ma ahan laba mid ah baan ku raahday marka leedahay x oo loo qaybiyay a b plus 2 يعني ما فرفر كرو ما أوران كرو إكس ولا قبي حبض وما سين كرو
هذا intaasi waxa la yiraahdaa equation teenina waxa la yiraahdaa waynu la soo baxnay waa maxay cos waa taas cos x-na waa taas hadaba waxaan filayaa asxaabi example kaasi in aynu isla fahanay qaabka looga shaqeynayo yani waa easy way anday soo xalli 1 minus cos ku bedelo kadibna intaasi waxay kaaga soo baxaysaa de waaba hal sende labadaasi haday soo baxaan wax ka soo baxay cos taas ku soo haraysa waxaan filayaa example kaasina asxaabi in aynu isla fahanay qaabka aynu ku timaadeen example keena labaad in isla fiirino oo ka sii fudiyo example keena labaad oo waxaan la weydiiyay sin oo lagu daray cos oo whole of square man tricks kayga aan maanta isticmaalaya yani waa maxay example kan waxaan rabaa inaan kugu soo trick marka qaar ka mid inay muhiim ay tahay ayaan rabnaa inaynu ku fiirino aniga waxa la weydiiyay waxa la yiraahday sin theta oo lagu daray cos theta oo la square wada gareeyay oo lagu daray bracket sin theta oo laga jaray cos theta oo whole square hadaba xeerkayga ku laabo a plus b muxuu ahaa waa a square gareysan oo lagu daray 2ab oo lagu daray b square gareysan kana muxuu ka yimaaday a oo laga jaray b oo square gareysan isagana maxaan ku barfurayaa a square plus minus afwan maada minus 2ab plus b square gareysan xeerkaasna ku furfuraynaa marka xeerkaas baynu ku furfuraynaa oo waxaan leeyahay sin square garay waa sin square gareysan lagu daray labadan isku dhufo balasna waan haystaa labadan isku dhufo sin cos laba ku dhufo 2 sin cos kan square garay oo lagu daray cos square gareysan theta lagu sii daray kanu imow sin oo square gareysan theta labada isku dhufo calaamadu waa minus b calaamadu waa minus 2 sin theta cos theta ila labada isku dhufo laba ku dhufo lagu daray cos square theta automatically labada tani maxay sameynayaan waa isla baxayaan waa isleeyihiin meesha maxay igu soo haraya marka waxa igu soo haraya sin square theta oo lagu daray cos square theta oo lagu daray sin square theta oo lagu daray cos square theta labada tanna waxay la mid ahaayeen Pythagoras-kaygi 1 lagu daray labadana Pythagoras-kaygi waa 1 waxay la macno tahay 2 hadaba waxa la yiraahdaa equation keena labaadna sidaasi ayaynu ku soo xalinay anagoo ka faa'iideysanayna Pythagoras-keeni iyo trick-keena anagoo ka faa'iideysanaya hadaba ka saddexaan aan isticmaalo fiiri trick-aygu maanta saddexaad aan isticmaalo oo qiimaha aynu soo saarno oo nala siiyay cos cubic plus x plus sin cubic x oo loo qaybiyay cos x plus sin x oo lagu daray cos cubic x oo laga jaray sin cubic x oo loo qaybiyay cos x minus sin x aynu fiirino marka maxay noo soo bixi doona qiimaheeda aynu fiirino hadaba asxaab waxaan loo qoray equation kan oranaya cos cubic x plus sin cubic x hada waxaan rabaa inaan trick-ayga baan rabaa inaan soo xasuusto trick-ayga waxaan ahaa wuxuu ahaa war hadii aad aragto sidatan plus b maxay ila mid ahay yani xeerkan trick-ayga waxaan ku radaa taa aragto waxaan u furfuraynaa a plus b oo lagu dhuftay a square a plus b square minus ab baynu furfuraynaa plus hadaynu aragno hadii aan aragno minusna hadii sida aynu aragnana sida kan ku cad fiiri b waxaynu furfuraynaa ma ku yiraahday minus baan koowaad ka dhigaynaa a minus b oo lagu dhuftay inta kale a square plus b square plus ab xeerka waxa la yiraahdo asxaabay baynu ku dabaqaynaa marka waxa la yiraahdo xeerkaasi baynu ku dabaqaynaa hadaba kana laftigiisa aynu ku dabaqno easy يعني حير كالك إنه بقر إنه ما حي a cubic plus b cubic وحي لا ديجنتا a plus b أو الغرفتي أما هالكاس حبا أنا وقرن هالكاسي أنا كشقين لفتيس أنا وكينا استعمالنا مرة برتي ساين وقرنا هذا بكر أنفر فرنا مرة ما دام بلاس تاي حير كنا نقول إيه ده يدوي مسوا كوس بيري وحنا ليه كوس x لو قدر أي sin x
bracket وان حري هاي a oo square garaysan eedaydu waa cos oo square garaysan lagu daray b deedu oo square garaysan sin oo square garaysan haye laga jaray he ab labadaas oo la isku dhuftay cos x sin x loo qaybiyay maxaa loo qaybiyay horta kaasan xalnaya kan number labaad ban xalnaya loo qaybiyay cos x oo lagu daray sin x hadaba halkaas maxaa isla bixi kara fiiri isku dhafasho weeyaan labada tani waa isla bixeen halka marka maxaan haystaa inta saray waxa iga soo baxay cos square x oo lagu daray sin square x oo laga jaray cos x sin x sarayahaygi intaas iga soo baxay sarayahaygi he halka ay ugu qornaato sarayaha inta iga soo baxday iga tirtir marka kan labaadna marka aan xalliyo kan labaadna he aan xalliyo hay kan labaadna waa minus waa kan sida u furfur yani labadan oo la kala jaray macnaheedu waxa weeyaan cos x oo laga jaray sin x hay waan kala jaray wuxuu ku yiri kan sareeya eeda oo square garaysan waxa leeyahay cos square x haye lagu daray weeyaa fiiri sin square x lagu sii daray cos x sin x loo qaybiyay maxaa u qaybsan cos x oo laga jaray sin x iyagana yaa isla baxay labada tanni waa ay isla baxeen labada tanni he waa ay la baxeen kadina marka kor aan tirtirto labadayda caadi aan isku daro waa laba caadi oo isku darsamaya caadi aan isku daro marka labadoodii kadina labadoodii caadi si caadi ah oo aan isku darno wixii isla baxaya aragno wixii soo baxana ugu dambeyntii aynu qiimeeyno aynu wada aragno kii hore maxaa iga soo baxay waxa iga soo baxay cos square x oo lagu daray sin square x oo laga jaray cos x sin x kadibna maxaa iga soo baxay lagu daray he cos square x lagu daray sin square x oo lagu daray cos x sin x yaa isla baxay hadana kan minus ka iyo kan plus ka way la baxeen meeshii maxaa igu soo haray cos square x oo lagu daray sin square x oo lagu daray cos square x oo lagu daray sin square x Pythagoras kana waa 1 kana oo lagu daray 1 waxay la soo baxday 2 natiijadeeduna waxa way halkaasi 2 weeyaan hadaba asxaabi nooc kasta ahaato war tricks-kaagi waa muhiim oo equation-nadaadi waa muhiim hadba adiga kan lagu diro baad ku dabaqaysaa kadibna natiijada aad rabto way iskeenaysaa hadaba asxaabi waxaan filaynaa inaynu ka haysano concept guud proving trigonometry identity in a proof ka hayso adiguna waxa sameeysaa daawade example inta ka badan raadi meel kasta wax ka raadi kadibna waa maxay equation-nadaada iyo tricks-kaaga isticmaal tricks-ku kuma anfici karo yani waa maxay trigonometry ka anfici maayaan wax alla la meel alla loo baahan yahay ka anfacayaan waa maxay hadii lagu dheeyo soo lagu daray 5 oo lagu dhaho ka shaqay isla markii maskaxdiisii waa maxay hadii aad taqaano waa maxay cubic formulaskii isla markaa waa kala tuuraysa hadaba waxaan sameeynaa asxaabi waxaan rajaynayaa inaynu isla fahanay oo wax badan aynu ka faa'iidnay saddexdeeni example iyo 10keeni videoga aan ka hadlaynay xeerarka iyo tricks-ka hadaba asxaabi intaasaynu ku soo gabagabeynayna inta aynu kulmi doono 10kan videoga xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah